aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada ee bisha November dhacaysa. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyay doodii ugu horeysay. Doodo 3 ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3da bisha November. Doodaasi waxaa la socday oo warbixintan kooban looga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan. doodan oo socotay muddo 90 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga aan weligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. doodan oo telefishinka si toos ah looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. waxaa kaloo si toos ah uga qayb galay oo daawanaya 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. waana markii ugu horeysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horeysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen. wariyuhuna uu soo kala dhex galayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay dooda sii kululaatay. su-aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mawduuc oo mawduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen. waxayna ka ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, dhaqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadi'da doorashada ee Mareykanka iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan canshuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyay $750 oo kaliya canshuurta dakhliga ee dowladda federaalka. madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019 taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $700,000 oo canshuura ay bixiyeen. madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu ra'yi ururinta dadweynaha muddo toddobaadyo ah ku horeeyo Trump. haddii doorashada soo socota looga guuleysto waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad 40 sannadood ee lasoo dhaafay ku guuldaraystay in dib loo soo doorto 4 sano oo kale. waxaa jirta odoros ay samaynayaan dadka ka faallooda arrimaha doorashadan oo qaba inay jirto suurtagalnimo ah in sidii dhacday 2016 markii uu Trump la baratamayay Hillary Clinton in Trump uu waayo codadka dadweynaha laakiin uu ku guuleysto codadka urursan ee electoralka loo yaqaano ee gobolada. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyay taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin. marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayaan markaas qofkii ay dhihi lahayn qofkaasa iiroon qofka wax dooranayo waxa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsan marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleedahay kana danahaada ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. marka qarnigii 19aad daqiiqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su'aalo weydiinaysa ma ay jiri jirin. laakiinse markii raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto. marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiiso yeelato. waxay kasii xiiso yeelatay markii uu TV soo baxay kontameeyadii. doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xoogan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka. sanadkan samacada waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyay 90% codad bixiyayaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha VOA-da Maxamed Colaal Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhageystayaal, waxaa naga xusuusin ah in faahfaahinta buuxda oo doodan ku saabsan iyo falanqayn aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo tan caawa. waxaad sidoo kale kala socon doontaan boggeena internetka ee voasomali.com. balse markan dhinacay Mareykanka aynu tagne Donald Trump iyo Joe Biden ayaa doodii ugu horeysay madaxtinimada Mareykanka ay isaga hor yimaadeen. waxay isku dhaafsadeen aflagaadayay muddadii ay dooda socotay ayaa la arkayay iyagoo aan hadal kala sugayn toosna isu weeraraya. waxayna si kulul uga doodeen arrimaha kala ah fayraska corona ee safarka dhaqaalaha kala duwanaanshiyaha dhanka midabka dambiyada iyo waliba isbedelka cimilada. dhanka kale xisbiga dimuqraadiga ee wadankaasi Mareykanka ayaa waxa uu gabar Soomaaliya lagu magacaabo Xamdi Xuseen Maxamed u magacaabay inay hogaamiso ololaha doorashada ee deegaanka ka tirsan caasimadda Washington iyo waliba gobolada aadka loogu loolomo. haddaba hawsha baaxadda leh ee ay hortaala gabadhaas ayaynu ka wareysanay Xamdi khadka teleefanka ay ugu warantay wariyaha Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. walaalo xilkan lii magacaabay waa abaabulka iyo isku dubadridka doorashada 2020 gaar ahaan Washington State xaafadda South King County bulshooyinka East Africanka, Asianka, Latinoga degan yihiin. shaqadeedana waxay noqonaysaa waxa ku saabsan inaan bulshada ku dhiirigeliyo inay codeeyaan aan fahamsiiyo codeynta sanadkan muhiimadda leedahay. gobollo badan baa bedelay sidii hore loo codeynayay sababtana cudurkan coronavirus dadka la kala ilaalinaya. soo berigii hore waxaa jiri jirtay gobollo badan baa dadka intay tagaan bay meel kusoo codeyn jiray. soo gobolaha xiray meelahaas hadda dadkina waxa laga codsanaya inay waraaqo kusoo codeeyaan. soo anaga xooga waxaan saaraynaa goboladaas dadka degan inaan fahamsiino siday u codeyn lahaayeen. ta kalena xooga waxaan saaraynaa gobolada marna xisbiga Democratic u codeeya marna xisbiga Republicanka u codeeya. waa goboladan isku qabsano anaga iyo xisbiga Republicanka. waxaa kamid ah Minnesota, Florida, Iowa. goboladaasna xoogan saaraynaa. marka maxaad is leedahay waad ku mutaysatay in lagu doorto shaqadani culus? walaal runtii in badan baan kasoo shaqaynayay siyaasadda, in badanna dowladdan usoo shaqaynayay. inan Congresska noo fadhida oo gobolkeena Congresswoman Jayapal la dhaho doorashadeedii baan kasoo shaqeeyay. markay ku guuleysatayna waxaan noqday her deputy district director. markii labaad ay ku noqotayna inay cararto waxaan noqday her campaign manager. markaan jaamacadda dhiganayayna waxaan soo bartay waxa ku saabsan sharciga dowladda iyo bulshada. soo 10 sanadood oo lasoo dhaafay waxa dowladda ku saabsan umaan ka dhex shaqaynayay. taa darteed aan lii doortay. marka ma howl adiga kaligaa markaa qaban doontaa mise koox ahaan ayaad ku shaqaynaysaan ama aad ku qabanaysaan? may maaha shaqaan kaligay kasoo bixi karo. dad badan baan aan la shaqaynayaa. dad baan weli raadinayna inay na soo raacaan ay nala shaqeeyaan. waa howl weyn. koox baan kala baxaynaa, xaafad baan u kala baxaynaa. waxaan isku dayaynaa inaan dadka ku dhiirigelino inay soo wada baxaan ay wada codeeyaan. deegaanada aad markaasi ololaha ka samaynayso ma aha kuwo ay qowmiyadaada ku badan tahay. marka rajo intee dhan ayaad ka qabtaa in aad ku guuleysan doonto hawsha lagu xilsaaray? aniga waxaan aaminsanahay inaan sanadkan ku guuleysan doono. hadda President Trump wuxuu isku dayay dadka inuu kala qaybiyo. bar waxaan aaminsanahay aniga dadka Mareykanka waa dad fiican oo runtii dadka jecel intooda badan. waxaan aaminsanahay sanadkanayto inay dadka xoog u soo bixi doonaan ay wada codeyn doonaan oo isagana kursiga laga qaadi doono. waa la ka daalay hadal xumadiisa iyo dadku kala qaybinayo. so I think saacadiisii way dhamaatay in kursiga laga qaadayo baan aaminsanahay sanadkan. deegaanada marka aad codka ka raadinayso waxaa ku jira kuwo uu ku xoogan yahay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump. marka goobahaasi oo kale sidee lagaaga arkaa adiga maadaama aad tahay gabar Afrikaan Muslim ah? way adag tahay inaan ka hadlo dadkaas kale waxay iyaga aaminsan yihiin. kollayba aniga weligay qof indhibay oo igu qayliyay hadaan u tagay oo hadaan wacay mar telefoonka waa la kula dhigaya oo qofku wuxuu ku dhahayaa xisbiga Democratic ma jecli ma la socdi. soo telefoonka isla markii ay dhigayaan. but inta badan dadka badan aan la hadalno dad xun ma aha. waa dad kaa dhageysanaya oo raba inay ogaadaan waxa u soo wacday iyo waxa ka dhex shaqaynaysid. so wallahi waxaan aaminsanahay dadka Mareykanka intooda badan waa dad fiican. ugu dambeyn hawshan bulshada Soomaalida gaar ahaan gabdhaha maxay uga dhigan tahay? aniga gabdhaha waxaan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo inay dowladda siyaasadda waxa sharciga ku saabsan inay ka dhex shaqeeyaan. wax badan baa u qaban kartaa bulshada. aniga waan ku dhiirigeliyaa aniga ka shaqeeya gabdho badan oo kale oo Soomaaliya ka dhex shaqeeya. gabdho kale
madow ka dhex shaqeeya and so waxaan jeclahay dumarka iyo hablaha inaan ku dhiirigeliyo inay dowladda waxa ku saabsan inay ka dhex shaqeeyaan. taasi waxay ahayd xamdi xuseen maxamed oo xisbiga dimuqraadiga u magacaabay inay hogaamiso ololaha doorashada deegaana ka tirsan waddanka Mareykanka.